saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Bilowga filimka waxaa nala tusayaa jilaaga filimkeena kaasoo lagu magacaabo Lunjin. Waana milkiilaha shirkad weyn iyo hotel, laakiin wuxuu ahaa nin aad u cunto jecel. Mar walbana hoteelo kala duwan ayuu tagi jiray si uu u cuno cunto macaan. sanado badan ayuuna hawshaan waday, balse weli hoteelada kamuu helin cuntadii uu jeclaa. Si kastaba ha ahaatee cuntooyinka uu hoteelada ka cuni jiray wuu ka heli jiray. cuntadaana sidoo kale wuxuu ku soo kordhin jiray hoteelkiisa. maantana markuu hoteelka cuntada ka cunayay, maamulaha hoteelkaas ayaa asaga ku yidhi, waqtiga aa cuntada ku cunaysi hoteelkan oo dhan ayaa ku iibsan kartaa. Lunjinna markuu hadalkaa maqlay aad buu u xanaaqay, wuxuuna asaga ugu jawaabay in halkaan uusan u imaan wax ka badan inuu wax cuno. sidaa darteed adiga waxba kaama quseeyaan haddii aan wax iibsanayo iyo haddii kale. intaa kadibna maamulihii hoteelka shaqada ayuu ka ceyriyey. haddana Lunjin markuu xafiiskiisa u socday, meesha baabuurta lagu baakimo wuxuu arkay gabar goobtaa joogta. sidoo kalena gabadhaa waxay xogtay gaarigiisa. arrintaana waxay la micno tahay in gabadhaa ay gaarigiisa ku qortay magaceeda. gabadhaana magaceeda waxaa la oran jiray Shiyaan. sidoo kalena waa jilaaga labaad ee ugu muhiimsan sheekada filimkeena. si kastaba ha ahaatee, Shiyaan saaxiibkeed ayaa ayada u sheegay inuu joogo dabaqa labaad, gaarigiisa madowna uu meesha yaallo. arrintaa darteedna Shiyaan waxay rabtay inay ka aargudato saaxiibkeed, sababtoo ah waxay ogaatay inuu khiyaanayo ayada. laakiin hadda Shiyaan waxay ogaatay in meesha ay joogto aysan ahayn dabaqa labaad, balse ay tahay dabaqa saddexaad. gaarigaanna maaha kii ay doonaysa inay hallayso ee qof kale ayaa leh. intaa dabadeedna aad bay ugu xumaatay waxay samaysay. sidaa darteedna waxay raali gelisay Lunjin. sidoo kalena waxay asaga ku tiri, hal daqiiqa isu gaarigaaga waan kuu mana aysan hagaajin karin gaarigan, balse asaga unbay niyadda u dhisaysay. laakiin Lunjin markuu arrintaa arkay aad buu u xanaaqay, sidaa darteedna goobta ayuu isaga tagay. dhinaca kalena Shiyaan waxay guri kiraa kula noolayd saaxiibkeed iyo eygeeda. sidoo kalena waxay sheef ka ahayd hotel weyn. arrintaana waxay la micno tahay in meesha ay cunto kariye ka ahayd, balse ma aysan jirin cid cunto karinteeda ka hesha, sababtoo ah had iyo jeer waxay karin jirtay cuntooyin qadiimi ah iyo kuwa iska caadiya. sidoo kalena Shiyaan waxay jeclayd maamulaha hoteelka. maamuluhuna sidoo kale ayada wuu jeclaa. maantana Shiyaan waxay asaga u sheegtay in xiriirkooda ay ka mira dhaliyaan oo isguursadaan, balse maamulihii ayaa si cad u diiday arrintii ay u soo jeedisay asaga. intaa kadibna waxay asaga u sheegtay inaysan jeclayn wiilasha daciifka sidiisa oo kale. asagana wuxuu ku yidhi, aniguna ma jecli gabdhaha uusan caafimaadkoodu wanaagsanayn, waana ka xumahay kuma guursan karo adiga. Shiyaanna markay arrintaa maqashay aad bay u niyad jabtay. intaa kadibna Lunjin ayaa yimi isla hoteelkii ay sheefka ka ahayd Shiyaan. haddana shaqaalaha hoteelkan waxay ogaadeen in Lunjin uu yahay milkiilaha shirkado iyo hoteello waaweyn. haddii uu ka helo cuntada iyo jawiga hoteelkaana wuu iibsan doonaa hoteelkan. arrintaana waxay sababtay in dhammaan shaqaalihii hoteelkan ay soo dabagalaan asaga. sidoo kalena Lunjin wuxuu hubinayaa hoteelka oo dhan, asagoo ay la socdaan gacanyarihiisa iyo shaqaalihiisaba. intaa kadibna madaxa cunto kariyayaasha hoteelkan ayaa asaga u soo bandhigay cuntooyinka ugu macaan ee hoteelkan laga helo. laakiin Lunjin kamuusan helin cuntada, sidaa darteedna wuu tufay. intaa dabadeedna cunto kariyayaasha ayaa mar kale cuntooyin kale goobta keeneen, laakiin weli Lunjin kamuusan helin cuntadooda. intaa kadibna maamuluhu wuxuu u tegay Shiyaan, wuxuuna weydiistay inay samayso cunto uu ka heli karo Lunjin. madaxa cunto kariyayaasha ayaana sheegay in xitaa aysan salar samayn karin, marka sideebay cunto macaan ku samayn kartaa. intaa dabadeedna Shiyaan waxay bilowday inay uriso wax kasta oo meesha yaalay, kadibna waxay bilowday inay cunto cusub kariso. fikir badan kadibna ugu dambayntii waxay samaysay cuntadeeda, laakiin ma aysan ogeyn qofka ay wax u samaynayso inuu yahay isla qofkii ay gaarigiisa ku ciyaartay. haddana Lunjin markuu cuntadeeda cunay aad buu u yaabay, sidoo kalena aad buu ula ashqaraaray cuntadan, sababtoo ah cuntadan aad buu uga helay. maxaa yeelay Lunjin asaga xitaa wuxuu ahaa cunto kariye wanaagsan, sidoo kalena wuxuu dareensanaa qofka cuntadan sameeyey inuu yahay xirfadle karinta ku dheereeya. intaa kadibna cuntadii loo keenay asagoo aad u faraxsan ayuu cunay ilaa uu markii dambe dhammaystay. cuntadaanna aad bay u madax martay asaga ilaa uu markii dambe farihiisa dhuuqay. war ninku dhuunisana. haddana dhammaan shaqaalihii hoteelka, maamulahooda iyo madaxii cunto karintaba sidoo kale waxay aad uga heleen cuntadii Shiyaan, aad bayna ugu sacabtumeen ayagoo ku ammaanaya waxqabadkeeda cajiibka. intaa kadibna Lunjin wuxuu la hadlay gacanyarihiisa, wuxuuna u sheegay inuu ka kansalo dhammaan kulamadiisa. haddana ma rabo inaan qof la kulmo oo aan kala hadlo arrimo cunto. halkaan ayaan joogayaa, halkaan
ayaana ka cuntayn doonaa. dhinaca kalena waxaan aragnaa Shiyaan oo aad u murugaysan sababtoo ah maanta waxaa soo idlaaday xiriirkii ay la lahayd saaxiibkeed. arrintaa darteedna aad bay u cabtay. sidoo kalena waxay aaday saqafka sare ee hoteelka si ay meeshaa wax badan ugu cabto. iyadoo aad u sakhraansanna waxay ka soo dhacday balakoonka meeshaas. maqlidda dhacdadaana Lunjin ayaa meesha yimi, wuxuuna ayada weydiiyey waxa ay halkan ka samaynayso waqtigan. 1 daqiiqo isug, hadda ayaan booliska ku wacayaa. laakiin Shiyaan hadda aad bay u sakhraansanayd, sidaa darteedna asaga waxay u malaynaysay maamulaheeda. lugaha ayayna ka qabsatay asaga, waxayna ku tiri maxaa guurkayga u diidaysaa? ma waxaan kuula muuqdaa mid foolxun oo haba yaraatee aan qurxoonayn? sidaa ayayna marar badan ku celcelisay. intay ku jirtay xaaladan sakhraanka ahna isla goobtaa ayay seexatay. intaa kadibna si uu ayada cashir ugu dhigo boorso meeshaa taallay ayuu ku riday ayada, kadibna wiishka ayuu saaray, halkaa ayuuna kaga tegay. haddana shaqaalihii hoteelka waxay arkeen Shiyaan oo boorsada ku dhex jirta, sidaa darteedna ayagoo cabsanaya waxay bilaabeen inay aad u qayliyaan. waxayna kaloo ogaadeen in arrintan uu Lunjin ka dambeeyo. intaa kadibna booliska ayay ku dacweeyeen, kadibna waa la xiray asaga. intaa dabadeedna gacanyarihiisa iyo Shiyaan saaxiibkeed ayaa Lunjin ka soo damiintay xabsiga, sidaas ayaana lagu soo daayey asaga. dhinaca kalena Shiyaan saaxiibadeed waxay ayada u sheegtay in Lunjin ay ka raali geliso wax walba oo ay asaga ku samaysay. intaa kadibna labadii gabdhood waxay bilaabeen inay meesha isaga tagaan. intaa dabadeedna Shiyaan waxay Lunjin u sheegtay inuu meeshaan isaga tago, meel wasaqa ayaana ku taagan tahay wiilyahow. intaa kadibna Lunjin gacanyarihiisa oo gaari wata ayaa meesha yimi, wuxuuna meeshaa ka soo qaaday asaga. sidoo kalena kabihiisii halkan ayuu uga tagay. gabdhuhuna markay arrintaa arkeen aad bay ugu qosleen asaga. maalintii xigtana Shiyaan iyo carruurta yaryar waxay ku ciyaarayeen geed u dhowaa hoteelka. intaa kadibna waxay tuuriyeen shinni meeshaa joogtay. arrintaana waxay sababtay in shinnidii ay soo weerarto dhammaantood, isla markiina Shiyaan iyo carruurtii la socday goobta ayay isaga baxsadeen. sidaa darteedna shinnidii waxay weerartay Lunjin oo meesha marayay. arrintaana waxay sababtay in shinnidu ay si xun u cunto asaga, sidoo kalena ay wejiga ka beddesho. intaa kadibna Shiyaan ayaa u timi asaga, mar kalena waxay ka raali gelisay qaladkeeda. isla markiina Lunjin gabadhiisa wuxuu ku amray in gabadhan uu soo xiro, sababtoo ah mar walba oo ay agtayda joogto dhibaato ayaa igu dhacda aniga, khatar ayayna igu tahay ayada. haddana marka xigta oo aad agtayda imaanaysid waa inaa isoo ogeysiisaa aniga si aan kaaga feejignaado, sidoo kalena aan goobtaa isaga tago. laakiin hadda xitaa weli ma uusan ogaanin in gabadhan ay tahay gabadhii uu cuntadeeda aadka u jeclaa. sidoo kalena cuntadaa Shiyaan oo keliya ayaa samayn taqaanay. dhinaca kalena Shiyaan ayada xitaa ma aysan ogeyn in ninkan uu yahay ninkii maalqabeenka ahaa ee hoteelkooda soo booqday, kaasoo ay taageeraha weyn u ahayd. intaa kadibna Lunjin markuu hoteelka joogay, gacanyarihiisa wuxuu weydiistay in shaqaalaha hoteelka ay u soo sameeyaan cunto cusub. Shiyaanna mar kale ayay asaga u samaysay cunto qaasa, waana loo geeyey asaga. maalinba maalinta ka dambaysana cunto cusub ayay u samayn jirtay asaga, kadibna waa loo geyn jiray. intaa kadibna Lunjin cuntadeeda asagoo faraxsan ayuu cuni jiray. haddana maamulaha hoteelka ayaa u yimi Shiyaan, wuxuuna ayada u sheegay inuusan jeclayn gabdhaha buurbuuran iyo kuwa caafimaadka qaba, laakiin waxaan jecelahay gabdhaha sidaada oo kale u aqliga badan, sababtoo ah aniga xitaa hadda waxaan bilaabay inaan aado jiimka. haddana waxaan kaa rabaa inaa caawa gurigayga ii raacdid, sababtoo ah waxaan rabaa inaan ku guursado. Shiyaanna markay hadalkaa maqashay aad bay u xanaaqday, sidoo kalena waxay bilowday inay cayso asaga, sababtoo ah horay ayuu u diiday guurkeeda. intaa kadibna waxay asaga ku kaliftay inuu goobta isaga tago, wayna cayrisay. intaa dabadeedna markay habeenkii guriga la joogtay saaxiibadeed, waxay ayada u sheegtay in baryahan ay ku mashquulsan tahay hoteelka, sidoo kalena shaqo badan ayaan qabtaa, sababtoo ah waxaan cuntooyin kala duwan u sameeyaa maamulaha cusub ee hoteelkeenna, kaasoo aad uga helay karintayda. haddana wuxuu iga dhigay cunto kariyaha ugu sarreeya ee hoteelkan. maalintii xigtana saxaafaddu waxay u yimaadeen Lunjin si ay u waraystaan asaga, isla markiina Shiyaan waxay ogaatay ninkii ay aadka u dhibaysay in uu yahay maalqabeen leh shirkado waaweyn. ninkaanna sidoo kale cid kale ma ahayna wuxuu ahaa ninkii doonayay inuu iibsado hoteelkooda. arrintaana waxay la micno tahay inuu yahay milkiilaha cusub ee hoteelkan. Lunjinna sidoo kale asna wuxuu ku waalnaa cuntada Shiyaan, sidaa darteedna si ay maanta mar kale u dhibto waxay cuntada ugu dartay dhir uusan jeclayn si uu u naco cuntadeeda, sidoo kalena uu hoteelka uga ceyriya ayada. balse qorshaheeda wuu shaqayn waayey ayada, sababtoo ah inkastoo uu markuu cuntada cunayay uu la ilmeynayay bisbaaska laga badiyey, balse wuxuu aad uga helay cuntadan dhadhankeeda. arrintaana waxay sababtay in cuntadii loo keenay oo dhan uu cuno, si joogtaa ayuuna cuntadeeda u cuni jiray. dhammaadkiina Shiyaan waxay keeg u samaysay Lunjin. arrintaana hadda waxay ka dhigan tahay in dadka oo dhan ay aad u wada jeclaadeen karinteeda cajiibka ah. intaa kadibna Lunjin
luunjiin wuxuu aad uga helay keegii ay u soo samaysay wax badan ayuuna ka cunay asaga intaa dabadeedna wuxuu codsaday in lala kulan siiyo cunto kariyaha sidaan u cuntada macaan balse shiyaan ayaa si cad u diiday inay la kulanto asaga intaa kadibna luunjiin wuxuu soo aaday jikada si uu ula kulmo ayada laakiin intuusan arkin ka hor ayay goobta isaga baxsatay sababtoo ah waxay ka cabsanaysay hadduu arko in shaqada uu ka ceyriya ayada muddo kadibna luunjiin markuu ku jiray qolka alaab dhaqista wuxuu arkay qaado dhulka taallo taasoo uu qof meesha ka qaadanayo luunjiinna markuu arrintan arkay wuxuu dareemay in tuug uu meeshan ku jiro arrintaasna waxay sababtay inuu xiro albaabkii qolkaas sidoo kalena isla goobta ayuu isku qariyey haddana gabadhu markay qaadada meesha kala soo baxday waxay bilowday inay goobta isaga cararto intaa dabadeedna luunjiin ayaa qabtay ayada wuxuuna ku yidhi asagoo xanaaqsan maxaa ii soo dabagalaysaa anigoo aan ogayn sidoo kalena aaway saacaddii aan ku idhi xidho si aan allaarmigeeda u maqlo markii aad agtayda imaatid intaa kadibna ayadoo dhoolla caddaynaysa waxay asaga u sheegtay in saacaddii ay ka halowday ayada intaa dabadeedna albaabka ayay iska furtay shiyaan qaadadeedana markay meeshaa ka soo qaadatay goobta ayay isaga carartay qaybtii koowaad ee filimkeennana meesha ayay ku soo dhammaatay haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeenna laag saar sidoo kalena channelkeena ku soo biir oo sabscribe dheh waa ku mahadsan tahay la joogistaada